بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد منطق سير عجيب وان كل دوونها Soomaalida iyo dadkan Western European-ka baan ku nisheega sida caadiga anu meeshan joogo ka shaqeeyo maalmaha Khamiista waxa la cunaa quraac special ah maanta waxana laga soo beegtay gabar meesha nala shaqeysa iyo wiil nala shaqeeya baa meesha isku rabeynay isku gursadaan yani gabadhii wiilkii markuu bahalkii la soo baxay bahal yar oo saan oo kala la soo baxay yiri waxaan rabaa inaan ku gursado afki gaaladan ku dhahay may guursanaysaa gabadhii ilmadii ka dhacday yani dadkii oo dhan baa aaminsan waayay subxaanallah waa laga yaabay anigu waxaan ba mooday inay ilaahay ka dhacday waa la aamusiyay haaday ku gurtay waa la aamusiyay hadhow waxa la yiri war maxaa ku yeelay waxay tiri ma filayn inaan waqtigan guursanayo waxa igu soo dhacday markaa maraan joogay North America maraan joogay baa gabar aan isku adigu reer macalq wax islanahay baan rabay inuu guursado markuu guursaday uu yimi uu doonay markiiba waxa la soo baxday qalin iyo calculator leedahay sariirtu waxa weeye 21,000 $3,000 kuraastu waa 4,000 daahiyadu waa $280 yani iyadoo yooba dhahinba baa waxay lacagtii waxay dhaaftay dhowr iyo 30,000 marka guurkan gabdhaha Soomaalida maxaa talo ka khaldan si waxba aan moodi markii ninku yimaado yiraahdo inaan guursada yes waa ku rabaade hawshaada qabso dhinacaagana ka qaad laakiin qallinkii buugan iska dhaaf anigu waa qisa cajiib ah maanta lil maskaxda waxa ka guuxaysay gabadhan sidee satisfy ahayd iyo gabadhan markii la yiraahdo loo guursanaasay qalliyo buuga u sido cajiib maxaa ka khaldan dadka salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh